بريجان ودن كان يمبان أنا واقف صومالي بان وحكو بلا بيستاندر وان كيجي مركي في صومالي وصوب بحب الله يقرأ لبيه تضاعتن كي مركي واحد برشة دي ضرب واحد صومالي أنت يريد دي سكندري اللي قاعدين شروي سكولا مده هيد مويان طب ده هالكن مركاني مي أيان نينا صاحبها هينو أمريكانها أيان نرس بهاين سجي حاسكيسيو ده مريكان بكون نقضو وراق بوي سوقري مركا باسكتبول كانوا اسكو تيم عيارا نكايغا سيدا نوع على سيبرغا سنو ما عسلان جيرين لكن مرمر وان تور تايم كبا نكيبا وراق بو سو قوري wuxuu yidhi we had a new adoption to our family we had 6 weeks old black labrador she's very cute playful and also very shy warqadii baan kaliya meel la fariistayo dabadeedna fahmay horta reerkii aan asxaabta inay wax ku soo kordheen labrador aniga markaa de iska daan noocayda kamid ah ay oo dhan baan de inoogu jirinba oo wadada waata Soomaalidu way ka cararaan dabadeedna labradorkii baan garan waayo intii ka dambeysay ayaan fahmay she is very cute playful and also very shy wasaas wallahi ninkii inaan baa u dhalatay intaan taw idibaan booskar soo qaado intii yareedan qaanay baan u qoro congratulations for your new daughter ninkii labadii booskarkii warqadii jawaabta wali waan hayaa uu soo jawaabo wuxuu yiri it was because of your poor English and my bad handwriting blame kii ma wada saarin we had a dog dabadeedna warqada dambe maalintii aan helay ayaa anigoo de isku qoslay anigu ayaa islaan cleaner noo ahayd hostelkan ku jiray soo gashay dabadeedna islaantii markaan labadii sheeko uga sheekay ayay tideen intaynaan tunbaad ku yara qaldantahay waxay ahayd kulli inaad booskar u dirtid hadii labrador kala u dhalay saani tanaaba ka sii waaran waxaan jeclahay inta aanan buuga ku soo noqon sheeko yar oo kale inay idin la wadaago taasi dadkan aanu ka mid ahay iyo qof kasta oo luqadda baranaya waxay ku dhici jirtay berigii hore markuu qofku wadankiisa ka tago oo wadan kale uu tago oo dhaqankii luqadda aanu garanay waxa maanta ka jirta adduunyadii maadaama ay aad isugu furantay waxaan jeclahay inaan idin la wadaago sheeko yar oo kale marka luqad lagu wada hadlayo iyo marka laba dhaqan wada hadlayaan way kala duwan tahay hargeysa kal hore inaanu saaxiibnahay oo baac mushtari weyna oo halkan wax ku bartay iyo Faransiiska iyo Mareykan ayaanu israacnayo company weyn oo uu leeyahay ayuu doonayay inuu soo daawadsiiyo controlka markaanu joogno ayaa ninoo yimo wuxuu yiri walaal ilaa oo barkhadle isii qaado dabadeedna ninkii company-ga lahaaba wuxuu ku yiri siyaasadda company-gayga kuma jirto inaanu qaadno dadka aan shaqaalaha iyaga ahayn aanan garanayn ninkan feberka noo weydiisanay isagu wuxuu yaqaanaa soo fuuliyo waanu buuxnaa iyo halka gaari mayno laakiin ninkan wuxuu akhriyaa policy company-giisa oo siyaasadda company-ga ninkii baa intuu saano eegay ayuu walaal siyaasadda iyo company-da ma weydiin aw barkhadle isii gaarsiiyay anigu dhaxda fadhiya labadiiba waa fahmaya moogta labadii af Soomaali bay ku wada hadlayaan ninna luqad kale kuma hadlayo laakiin laba dhaqan baa wada hadlaya moogta ninkii baa intuu saano eegay wixii uu garan waayay markaas uu war af Soomaaliga miyaa la bedelo soo iska dhaqaaq